حسكاف واو سلامي iyo tayda macallin iyo saaxiibada kale Cabdi Fataax Maxamed ee garan la aada hadii saaxiibada kale aan idin soo mission garay way halkan laakiin sidaad u dhantihiin salaan qaali ah iga guddooma caawa sheekadu waxa way tacsiba noo taala ragna fadhi intaan ka badan ma fadhin karo raggu socodku waa ku daalaa fadhigu waa ku daalaa bini aadamka dhan asaas ah assalaamu calaykum dhamaantiin meel walbo joogtaan caawa arintu way ka duwan tahay anigu haddaan idin sheegayaa qarax dambe oon ka hadlo oo dad ku dhamaadaan waliba special muqdisho dadka degan caawa horta insha Allah caawa horta igu dambeyn doonta qarax dambe oon ka hadlo maxayse intaan igu dambeyn ka horse maxaan ka dhigan doonaa maxaan ka baran doonaa maxaan ka dhihi doonaa dadkaygu samoo dhagan doonaa waxaan dhihi doonaa caawa intaanan u gudagelin marka baaqaas de anigu markaa ku leeyahay qarax waa ka hadlaa because garow gadaal aan kaga faahfaahin doonaa waxyaabahaas isku iri gadaal baan ku faahfaahin doonaa marka hore waxaan rabaa inaan 2 minute ama 1 minute hor istaago sidii wax u dhaceen horta marka hore waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed intaan qarax iyo geeri iyo baaq iyo dhimasho iyo dhaawac iyo dhiig yari intaan gelin marka hore inaan u tacsiyeeyo anigoo ku hadlayo magacayga iyo bulshada i daawanaysa ee aanan u suurtagelin in fikirkooda uu gaaro ehelada dadkii ay ka geeriyoodeen walaalihii qaaliga ah ee maanta Elite Hotel ku naf waayay iyo kuwii ku dhaawacmay aniga iyo saaxiibada Facebook oo aanan codkoodu meel fog gaarin ayaan rabaa inaan idin tacsiyeeno walaalaha Soomaaliyeed kuwii dhintay waxay ahaayeen walaalaheen si lamida sidee walaalihii kula yihiin gabdhihii dhintay waxay ahaayeen gabdho walaalaheen ah wiilashii dhintay sidoo kale aabayaashii dhintay sidoo kale hooyooyinkii sidoo kale iyo intii ka qayb qaadatay badbaadinta ummadda Soomaaliyeed ee halkaas ku geeriyootay waan u tacsiyeenayaa oo waliba special waxaan u sii tacsiyeenayaa kuwii aan wax shaqo ku lahayn dhacdadii ama garabyadii isdiidanaa ee dadkii shacabka ahaa ee masaakiinta ahaa ee la toogtay ama ha ku dhintaan xabadii shabaabka ka timid ama ha ku dhintaan xabadii ciidanka dowladda Soomaaliya labaduba waa shacabku waa dulmanayaal waaye waa victim dadkaas dabcan waxaan leeyahay horta special ilaahay ma aragtay dadkaas samari ma Allah naga siiyo muhiim kuwii kale dhinta dabcan waa dad dagaalamayay iyagana ilaaha garanaya halkii gaadayaan dabcan anigu garan maayo laakiin waxa waajib igu ah in dadka masaakiinta islaamka ah anigu aan u tacsiyeeyo kuwaas waajib igu ah halkaas tacsida aan kaga gudbo waxaan rabaa marka labaad waan qashuucsanahay waa dareemi kartaa in dadkiisii ehelkiisii qaraabadiisii meesha ay ku laadeen anigu ehelkii qaraabadu ma garanayo waxay waalidkii dhaleen waxaan u garanayaa dadkii masaakiinta aan la soo barbaaray naftu kul nafsan daa'iqatul maut anigu ma hubno bari baan baxaynaa waxaan la qashuucsanaa marka qaraxi sidoo u dhacan rabaa in hal daqiiqo idin kaga istaago baday ka soo galeen iyo warbaahintan maxalliga iyo kuwa dawladda afkooda ku hadla ee shacabka beenta u sheegaan rabaa mar shacabow digniintaasna waa ii dambeyn doontaa horta nimankan qarax ismiidaamin ah ayay ku soo galeen Elite inkastoo saacad iyo bar ka hor ama saacad ka hor qaraxi la soo afjaray saacad ka hor ayay la soo afjaray qaraxa laakiin galabta 5 iyo barka galabnimo waqtigii salaada maghrib ay soo dhaweed anigu hadda waan ilaahay Soomaaliya 5 6 iyo wax la jira dugan jiray waagi hore adduunku was bedelay adigu 5 iyo barka waqti casr liiqa ay tahay nuhubo ayaa qarax lagu dhuftay albaabka hore laga galo hotel Elite kadibna waxa xigay 6 rag ah oo shabaab ah oo ku hubeysan qoryo culus iyo kuwa fudfudud ayaa gudaha u galay waxayna jiireen oo ay garab mareen ilaaladii hotelka oo iska caabin waayay isaga filnaa waayay nimankaas gudaha hotelka ay galeen intay tooga kareen way toogteen waxayna ka bilaabeen toogashada ciidankii waardiyaha ka ahaa hotelka markii ay dhulka dhigeen waxay toogteen shacabkii intii ay ka gaari kareen inkastoo maadaama qarax dhacay lees hareer maray rasaas socotay
hotelka ciidankii degnaana lama wada tooganay xabadihii hotelka kuwii ridaayeen iyo kuwii halkan galaya iyo dad fara badan oo muwaadiniin Soomaaliyeed ah ayay halkaas u saamaxday in naftooda ay badbaadiyaan Allah subhanahu wa ta'ala wax badbaadiyay halkaasi ku badbaaday oo halkaasi nasiib wanaag kaga baxsaday dhibaatadii ama shaqadii ama xasuuqii halkaas ka dhacay waxay si toos ah u aadeen nimankan hotelka qaybta koowaad iyo labaad waxaa jira nin ciidanka haysta nabad sugidda qaybta Haramcad iyo ma garanayo qaybta saacadu haysto Farxan Qarol la dhaho oo ciidankiisu ay halkaas yimaadeen oo ay galeen waana been laba arinna waa been oo ciidanka Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa isaga filnaaday way isaga filayeen dabcan laakiin ciidankay dawladdan waa yimaadeen oo qaybta shanaad ay ka bilaabaan sidii ayaga taantik u taalo waa garan maayo waxay ku leeyihiin qaybta shanaad ayaan ka soo bilaabeynaa dagaalkii wuxuu socdaba in ka badan 20 qof ku geeriyootay dagaalkii maanta ka dhacay iyo qaraxii markii total geerida la sugeeyo inkastoo xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ah ganacsado Soomaaliyeed xildhibaan uu diiday in hotelkiisa loola macaamilo markii shabaabka ay galeen kadib go'aan uu soo saaray uu sheegay ciidankii Farxan Qaroole in hotelkiisa aan loola macaamili karin sida hoteeladii Naasablood iyo Saxafi oo lagu garaaci karin hubka culculus oo hotelka ciidanka isaga u gaar ah sida gaarka u leeyahay in ay awood u leeyihiin in iyadoo aanan hoobiyaal lagu garaacin hotelka ay geli karaan iskana caabi karaan ragga duulaanka ku soo noqdo hotelkiisa badina waa ku guuleysteen inkastoo ay ciidamada federaalku garabna ay ka heleen haddana mas'uuliyiin fara badan ayaa ku jirta meesha oo dowladda federaalka ah kuwa ku jira aqalka sare ayaa ku jiray oo aan hadda rabin magacooda inaan baahiyo markii la ii sheegay in ay halkaas ku jireen waa la xiriiray waxay u dhaheen ma maqasheen inta saas u hadleen ma maqasheen dhaheen idaacad maxalli ah idaacad banaanka ah ama TV magaceeda la sheegay maya ana idin sheegay marka sababta u qarnaa waa jab dowladda federaalka ay qarinayso in xildhibaano golaha shacabka iyo aqalka sare labadaba aqalka hoose aqalka shacab iyo aqalka sare labadaba ay ku jireen laakiin ceeb loo maleeyo xildhibaano Soomaaliyeed halkaas ka badbaaday iyo dowladii nabadii nolol fashilantay isaas maaha xildhibaanadu kama qeyr badna kama fiicna kama sharaf badna shacabka halkaas ku dhamaaday qisadu sidaas ay maanta u dhacday marka intaysan qisadu dhicin ka hor maalmahan ama sanadadan war shacabow baaqa aan raba caawa su'aasha ugu horeysa raba inaad weydiiyo waxay tahay waad ogtihiin meel walba la xiray waad ogtihiin gabar Soomaaliyeed oo habeen dama ama saacada habeen waaba dheer yahay saacada inagu soo socota foolanaysa dhali rabta inaysan ku dhali karin magaalada Muqdisho waxaad ogtahay in meedka sidaas loo qaado oo garbaha lagu qaado waxaase aqligeena yariiska ah loo sheegayaa in baabuur walxaa qarxa ka buuxaan oo askar shabaab ahna ay gadaal gaari kale ka saaran yihiin in ay soo dhaafeen jagboonti walba oo ciidanka dowladda Soomaaliya u yaala ay sameeyeen hadafkii loogu talagalay inay sameeyaan oo waliba very easy ah waxaan rabaa runaan weligay ummad Soomaaliyeed u sheegin halkan ka sheego run dacabta ka xaraar badan inaan halkan ka sheego inaan beesha caalamka la hadlo inaan dowladaha Yurub aan ku noolnahay u sheego runta kuma war la'aan runta inaan noqdo xataa dib baa iga soo gaaray Soomaaliga ugu horeeyay cadaalad ka hadla ee xataa dib uu imaado naftiisa ama dal ama dibad haddaan runta la sheegin anigu maanta haddaan dhinto anoo Soomaali runta u sheegay ciil ma qabo runta aan sheegay ma waxaan iga soo maaxday ma aqli aan in garaad aan dheera dadka laga yaabay furigii ama doqonkii caawa inuu ka geesisan yahay geesiyaal runta la cabsaday waxaan rabaa marka hore intaanan baaqa aan idii soo wado oo aan WhatsApp madaxdii Mudulood iyo kuwii Hiraab iyo kuwii Hawiye iyo kuwii Soomaali weyn ee xamar deganaa ama digri bilifle iyo dirha lahaadaan isaaq lahaado aan caawa WhatsApp shir ku qabsan ayaan rabaa marka hore shacabka horta ma laba su'aal rabaa inaan shacabka weydiiyo ma waxaad tihiin dad warmoog ah oo aan waxba ogeyn oo musiibadu isuga imaado oo mucjisadu iskaga dul saaran tahay
oo u dulqaadan karo dameer camal iska xamili kara dhibaato walbo miyaatiin oo waxba ogeen oo walaalkiisa dhintay cabdikariim soo maaha waxaa dhintay maxamed walaalkiis hooy xaawaa dhimatay qeyrxi maanta awow maxamed aa lugta ka go-ay walaashay farxiya maaragtay qoorta hore baf dhahday isbitaalkeesanaya dhiiga loo mataa dad noocaasoo macnaha qisadii imaado isaga qashuucayo waxba beri iska ilaaba maa tihiin mise waxaad tihiin dad og mucjisooyinka ku socdo laakiin aan hadli karin inaan intaas i cadaysiina rabaa haddaba waxaa dalka jooga anigaa af kulul luuqad kulul ku hadlaya anaa luuqad kulul ku hadlaya caawa laakiin waxaan rabaa inaan marka hore shacabka soomaaliyeed doqomo maahane cid hadashay la-yihiine madax ku shaqaysanaysa dhinacyo layska haysto anaan raba inaan noqdo qofkii ugu horreeyey mana rabo sidaan idiin sheegay markii aan ku bilaabay liveka inaan qaraxda muxamar ka dhaca ka hadlo bolitigaygaas ka wadanayaa kaftankaygaas kasii wadanayaa sababtoo qofka hadduusan fiiri dadka haddaysan kala jecleen qarax inay ku dhintaan in waddo laga xirto inay rafaadsan yihiin anigu sidaa u damqanaa marka dadku markay damqanayaan dhiig leeyihiin kicin u baahan yihiin in ay istaagaan rabaan anigu waa damqanaa laakiin haddaa adiga kala jecleen anigu damqan maayo mana kala jecli adiga haddaa runta kuu sheega adiga laftirkaaga luuqada kulul waxaan kula hadlaya beesha caalamkana maaha shabaabna maaha dowlad federaalna maaha adduunna maaha adiga laftirkaaga haddaada geeridaada kala jecleen oo hooyadaa meedkeeda kala jecleen oo aabbaha meedkiisa kala jecleen aniguna adigu kulma kala jecli geeridaada dhiigaagana ma jecli dhibaato kalama jecli inaad nooshaa inaad dhimato si lamida sida adigana oo u kala jecleen walaalkaa iyo hooyadaa geerideeda oo aad ugu tacsiyanayso hooyadaa farxiya hadday dhimato walaashaa nasre hadday dhimato walaalkaa farxaan hadduu dhinto you don't care beriyaad u socotaa bakaaro beriyaad suuqbacad u socotaa kalama jeclin annuna kalama jeclin geeridaada beri sababtoo a dadkii maanta dhintay waxay ka badbaadeen oo ilaahay mahad weydiisanayeen qaraxyadii naasa hablood iyo saxafi iyo kuwii kale kuwii daraad dhintane waxay ilaahay mahadiisa weydiisanayeen inay ka badbaadeen qaraxyadii kuwan kasii horeeyay liiday iyo wixii kale kuwa maaragtay qaraxy waxaana soo martay malaayiin qarax kuwaa sooba ka badbaado maanta ku dhintay laakiin waxaan aaminsanaa lahaa hadduu sidan ku dhiman lahaa hadduu sidaan si ka duwan ku dhiman lahaa isagoo dagaalamaya ama dowlad hala dagaalama shabaab hala dagaalamay sharaf qofka marka uu dhinta adduunka taala lagu dhisaa hero legacy uu ka tegay qofka geeridu waa xaq laakiin markay sharaf leeday ku wacan tahay inaad gurigaada adigoo jiifto laguu soo muraado waa geeri sharaf leh laakiin adigoo madax raaracan in lagu dilaan ka baqaaya waxay damqinaya ma ahan in la dhinto ma aha ilaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaa asxaabtiisa la dhimanaya ma aha in la dhinto inaan kala jeclahay anaan dhimanayo saacad kadib sanad kadib ma garanayo laakiin waxaan u dhimanayaa sida adigu u dhimatay sababtoo aniga soomaali kala ahay maxaa ku dhaamaa adigu waddo sax waa itu sugays anigu marka waxaan rabaa inaan nuxurka doodeedu u galo beesha caalamka dad turjubaano ah oo halkaan iga daawanaya jira 4,000 oo qof dee dadaan u shaqeyn UN iyo xalana joogin u malayn maayo inay ku jiraan nimayahow 20 sanaad ciidan ku biilayseen Soomaaliya oo amisom la dhaho nooc walba isugu jiraan dalkan Soomaaliyana wax ay ka qabteen oo ilaahay unta ma jirto 20 sano ayay mushaar ka badan mushaarka ciidanka Soomaaliya qaataan 1200 ilaa 2000 jarnaaladooda saraakiishooda iska daa inay amaan sugaan waxay isku soo oodeen xeriyihii waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed in muuqaalkan ay la wadaagaan muuqaalkan oo ah muuqaalkii ugu dambeeyay oo aan qarax kaga hadlayo inaad geysid goob walbo iyo cid walbo oo quseeyo especially dadka reer Muqdisho kula hadlaya muuqaalkan waxaad la wadaagi kartaan cid walbo arrintan ay quseyso waxaan kaloo codsanayaa igaraale ahaada dadka arrintan aan la hadlayo hadda qolooyin badan baa la hadlayay qolyaha ay quseysan in loo turjumo haddii aysan Soomaali garanaynin haddii ay Soomaali yihiin ay ku cibra qaataan dadku inaysan dabaal ahayn ciidamada amisom Soomaaliya ee dalkan waxay joogaan 20 sano waxaad maqasheen gabdha ay kufsadeen waxaad maqasheen ciidamo Soomaaliyeed oo baawur jiisiyo oday waayeel oo masaakiin oo kabar maaragtay sigaar ama meel loos iskala taagan ciidamada jiirsiyaan wax diyaal lama bixiyo wax dhaqaale ma dhiibaan wax amniye ma sugaan xiriyahoodii ku sugan yihiin shabaab iskama celin karaan runal rabaade ma run la sheegay rab ma da'ay shabaab in fiiri ya dadku waxa rabaa inaan runta u sheego shabaabka markay ku duulayeen ciidamada Itoobiya iyo Kenya iyo kuwa xamar daadsan ma ciidamada Itoobiya wax ku duula ma Kenya ba wax ku duula ma Djibouti ba walaaleen Djibouti ba wax ku duula ma Uganda wax ku duusha ma Burundi wax ku duula ma Isiga lagu soo duula
niman iyaga lagu soo duulayo oo geeridooda qarsanayo oo dhibaateysan oo ayagana mandate ah in shacabka ay badbaadinayaan xeryahooda ku jira anaga Soomaali haddaan nahay waxba noo qaban maayaan waxbana noo tari maayaan waxbana kama qaban karaan Soomaaliya wax lamida waxaas wax ka wanaagsan oo ka wacan hanoola keena haddaan nahay ummadda caqliga u saaxiibka anigu taa waa qaadan weyne ciidamada Soomaalida ee dawladda lagu sheego ee baleyska ah ama militariga ama nabad sugidda ah way u caal waayeen iska caabinta al-shabaab runa la sheegin ma ahanay ratid dameerka raad qurxoon maalin walba shacab baa dhimanaya maalin walba masaakiin baa la dilaya adiga hooyadaaba dhimanaysa hadday hooyadaa nasiib wanaag iyo aabaha ka badbaadeen adiga kugu imaanaya beri hooyadaa sugaysaa hooyooyinka kama wacna hooyadaa dhimanaya aabaha kama wacna ciidan Soomaaliyeed waxaan rabaa in wadda Soomaaliya ogaato ciidan Soomaaliyeed oo shabaab u babac dhigi kara ma jirto qof aniga ila mid oo xamar joogo saas dhihi karana ma jiro anaa dhahayo runta sheegay ma jirto marka haddii aan nimankan loo babac dhigi karin oo waxay rabaan ay ka samaysanayaan dalkan oo gobolada waxay doonaan ka samaysanayaan oo qolyo walba ay ku duulayaan oo fiiri aniga ma dhihin Mareykanaa dhaa sidaa miyaa dalka iyaga aan isaga dhiibna marka anaga nabadaan rabnaa waxa waddanka maamulo ma kala jeclin anaga cidda dalka maamulaysa kalama jeclin nabadaa u baahannahay ma aha in aniga sida xoolo biri camal meedkeena meel walba yaallo war aniga nabad baa u baahnaa cid walba hana maamusho waana maamuli waayeen dadkan 20 sanana haysta hadda wayna maamuli waayeen they failed way ku fashilmeen arrintan waxaan rabnaa isbedel weyn oo ka duwan nimankan naga soo horjeeda ee shabaabka argagixisada aad dheesaan war marba dalka u dhiiba sidee rabaan wax una naga sameeyaan sidaan hal maahane wadda kasta xiratay waa ku ciidankii waxaan rabaa sidaas markaa leeyahay ciidanka nabad sugidda la shaqeeya baliiska la shaqeeya militariga la shaqeeya wasiirada la shaqeeya xildhibaanada la shaqeeya doqomo miyaa tihiin xildhibaana la shaqeeya wax qof walba aad u jeedid iyagoo la shaqeeya dawladda farmaajo iyada la shaqeysa dawladii kore iyaga la shaqeeya qof walba la shaqeeya nimankan dadkan marka masaakiinta ah maxaa loogu ciyaaraa dadkan masaakiinta ee dhimanaya maxaa loogu dheedheelaa maxaa dambi looga galaa anigu at least hadalka hadda aan soo jeedinaya waxaan rabaa at least inay ogaadaan dadkan in wax noocaas ay dalka ka jiraan waa la isla shaqaystaa walba nimankan la celin la'yahay ee weerarka ah dalka ha loo dhiibo aan nabadgalnay haddii fiiri markaas saas leeyahane waa niman aan u jeedno inaan loo babac dhigi karin waay walba haddii loo babac dhigi karane ka sifeeya dalkan hal suulaa sida Daacish Ciraaq uga suush aan aragno hal laga suuliyo dalkan oo Soomaaliya shabaab la'aan oo nool oo xora mal arki karaa anigu ima muuqatay walba ayaga dalka ka qabsadaan oo hanna maamulaan maxaa been lagu sheegaa ummadda farmaajo wuxuu soo qorayaa hadda anigu hadalkiisa kale ma rabay waxaan u socdaa muhiimadda ah shacabka Soomaaliyeed waa inay la diriraan yiri argagixisada war shacabka Soomaaliyeed ay la diriraan maxay adaan la diriri karin adiga iyo kuwa ka ilaaliya la diriri karin shacabka Soomaaliyeed sidoo la dirirayaan adaan la diriri karin ciidankaada la diriri karin kuwa ku ilaalishay ajaanibta la diriri karin kuwa ajaanibta ah ee adiga ku ilaalishay xeriyooda ugu soo galaan maxaa ummadda been ugu sheegay ummadda taas waa qodobka labaad shacabka Muqdisho la hadla marka war shacabka Muqdisho iridna kuma furna meedkaadi garbaad ku qaadataa adiga waxaan ka rabaa oo Muqdishaarwiga ah waxay kugu dhicila overall waa kugu dhicin wax aan kugu dhicin ma jirto dhagaxyin waa kugu xiriin amni ma haysatid gabadhaadina ma dhali karto hooyadaa fooshu waa ku dhib aabaha oo duqoobay ama dhalinyarada tii alla u imaado meedkiisa ma qaadan kartid haddii xabad wiilta ku dhacda tii alla u timaado labadaba ma qaadan kartid hay qaraxna waaye wax lagaaga cilooyo meedka iyo foosha iyo cunuga dhalanaya wax lagaaga cilooyana waa dhagaxa lagu gooyay dhagaxan geeridaada malaga dadkii wadana waa la soo deynayaa adigu ma sidaan baa ku noolaanaysaa noloshaada marka maxaa ku hal ah ololaha dhagaxa out ma ka qayb qaadanaa oo ma galnaa oo farta taagayaa yaa reebi ah dhagaxa xaafad walba inay iska qaado ilaan adigu dhagaxa haddaad faa'iido ku haysato fiiri eeji haddaad nabad ku haysto caano ku haysto waa dul qaadan karaa 2 daqiiqo xataa haddaan wax ku haysto aniga laakiin far ciddi mataqaana aanan faa'iido ku haysan anigu nin raga uguma haysan karo anigu ciddi aanan waxba ku haysan qof laakiin eeji haddaan faa'iido kugu qabo ku dul qaadanaya iridaad ka baxdina ma haysatid irida aad ka socotidna ma haysatid shaqadaadana tagi karin xafiiskaagaad 2 saac iyo 3 saac u lugeynaysaa halkii aad 10 daqiiqo gaari ku tagi jirtay dadkii shabaabka ahaayna xooggoodii ku maraan magaalada qof ay baryaan ma laha jagboonti walbaa laga soo daayaa
وعمر وحكوا شيء كيا سردون كايديا للسميو ايدي كرب ما واللي جيد مرجرين الله عبد الله يوسف الى هذا dadka maxaa beenta lagu sheegay ana xamar kun wala waagi Abdullah Yusuf ilaa hadda waa mari jireen shabaaba meel lagu qabtay fiiro waligiin ma aragteen hal su'aal idin weydiina war waligiin ma aragteen shacabkeegiyo shabaab ayaa la qabtay dadkan kaamira cid ka jecel ma jirtee shabaab sawiran oo baabuur Cabdibilaa saaran oo weerar u socda dal la qabtay oo baabuurka saaran ma aragteen iyo baabuurka qorxo ka dambeey noloshiina in ma saarteen yes or no isoo qorriya isoo qor damir laawe isoo qor waliga afar shabaab oo ka wadato iyo baabuurka qaraxay ay wax ku qarxineen oo la qabtay ma maqasha adiga ma aragta kaamira ma ka aragta maya uqsum billahi yan ku dhaartay maxaa ka weyn gudoomiyaasha degmooyinka markay xiraan dad waxa loo yahay shabaabka inta sawcaan ilay hala siday hebel siday hada nolol ribta asu sideenaya waxay shabaabku marayaan in degmooyinka gobolka banaadir salageedooda ay dadka telefoon ugu daayaan ma weerar iyo ma gudoomiye degmo hay meerta ina sidoo la taa hebel siday haddii dhul la isku qabsado xukunka halkaas uu aadaa haddii qof been loo xiro xukunka halkaas uu aadaa haddii tuug la soo qabto dambi lagu waay xukunka halkaas uu aadaa maxaa ku dhiman hadaa daawatay filimkii horarka ah xabsiga dhexe maxaa ku dhiman oo ku sheegi kara miyaad doqon tahay miyaad nacas tahay miyaad fahmaynin dalka korkaaga inay wax ku socdaan miyaad tahay qof dhiman oo wax u dhiman yihiin maxaa ku dhiman hadaad geesi wax ila garta taana war dadkaaga hormud u noqo legacy ka tag haddaad doqontaana caawa indhaha furo xabsiga dhex maxaa ka dhacay nimankan kule waxaan soo baaraynaa xabsiga dhex waxaan ka dhacinaa waxbaan ka soo baaraynaa ee dowladda farmaajo war dowladda farmaajo kaliya markaa aniga maqaam sare ka hadlaya dowladda farmaajo kaliya uma socdo wixii dowladda ka horreeya dhan ka hadlaya aniga wax ay shabaab ka qaban karaan ma jirto war xabsiga dhex hadda guddi ma loo saaray wallaahi billaahi tallaahi ilaahay hortiisa iyo hortiina taagan waxba ka keenayn sababtoo filin shabaab ku daba arooro waaye waxba lagama keeni karo dilkii injineer Iriso wax ka weyn oo dawlad ku dhicilaa miyaa jira guddigii loo saar maxay keeneen 1 year and 1 month kadib maxay keeneen nothing at all baaritaanki intuu ku dhamaaday ma maqashay wax ku dhamaaday ma ah waa loogu talagalay wax baaritaan lama jiro qarax waa dhacaa bam waa la duugaa laakiin heer gudoomiye degmo xafiiskiisa gobolka dhan laga maamulaya amnigiis la soo geliy wax yar ma ah fiiri qaraxa hataa waa la sarrifaa lacag camal waa inaa barataan qaraxyada qaraxa markii afgooye gudoomiyaha degmada afgooye miina dhulka hoosteeda loo dhigo qaraxaas wuxuu sheegaa shabaabku aaga inay weli joogaan waana laga buriyay laakiin weli waa joognaa waaye qaraxa markuu taliye ciidan hadda odawaay soo taliye ciidanka qaranka Soomaaliya ma albaabka isagoo galay baaro lagu dhufto maxay tahay qaraxaas masariif kartaa ma baran kartaan ma taqaanaan micniis waxa weey qaraxaas kuwa ka hoosee ma u daahira adan soo aadno waay taliyaasha kale degmooyinka bixiyeen waa inay kala barataan qaraxyada qaraxa injineer Iriso wala una xariistay lagu dilay hadii la sariifo muxuu noqonaa wali waa noolaa maamulka qaraxaas inuu yahay magaalada wali jooga miya gudoomiyaha kala dili kara miya ma aha wax amni Allah oo gacanta ku haysto ma jirto qaraxaas hadii lagu fasiro wallahi inaan been ku sheegay waa inay qaraxyada kala barataan markay dhacaan wax amni Allah iyo wax maamul iyo wax dawlad oo dalkan kama jirto waay markii hadii gudoomiye Iriso la dilo hanaad fahantaa isku daya qaraxa dhacay ma aha qaraxa dhacay qarax markuu suuq xoolaha warshada baastada ka dhaco iyo gudoomiye Iriso marka laba qarax waay waa inay kala barataan waay qaraxii xabsiga muxuu ahaa wax security loo maartay oo dawlad waa mid la mid ah Iriso waay waliba uu ka sii daran yahay Iriso waa gudoomiye degmo oo rayd ah waay muqt Iriso jarnaal ciidan ma aha taliye booliis ma Iriso muqt waa gudoomiye degmo oo rayd laakiin marka booliis fiiri ciidamadii booliiska iyo asluubta oo iskaashanaya xabsigooda hub loo dhaxgeeyo dalka dawlad kama jirto waay ilaahay magaciisa ku dhaarto asaas adduunka hadaa taqaanaan sababtoo hada wadan ku noolahay Finland hadii xabsiga la weeraro iyo hadii Cabdiqaadir Boos meesha wax lagu diro isku baaritaan ma aha baaritaan qoto dheer waa arintaas dawlad dalka kama jirto waa hadii xabsiga dhex hub lagu soo aruurinayo dalkan dawlad totally kama jirto waa saas inuu fahmaan raba shacabka Muqdisho marka dalaan dawlad ka jirin adiga sidee marka adiga shaqadaada iyo gabadhaada oo dhalaysa iyo walaalka oo dhaawacan oo mid lagu soo boodo dhiig madaxa ugu furmay oo aad ugu geeysan karin isbitaal dalaan dawlad ka jirin kaalintaadu waa ina xaafad kasta dhagax iska qaado waay xaafad walba dhagax iska qaado waay wallahi kaalintaadu saas waay haddaad sii fiirsato haddaad dib u laabto hadalkayga anigu ma garanayo qarax maanta dhacay saameyntiisa waa elita la galay
mid kasta geli karnaa waay hadii hotel elite laftirkiisa la sarifo ama la sharxane oo experience laga bixiyane elite amnigiisa dabcan waa sugaya inta taqaana waa hotelka kaliya qof ku dhiiran lahaa marka laga soo tago jazeera hadii elite la galay shabaabku waxay leeyihiin waxaan geli karnaa hotel walba xamar ku yaalo taas ina waagatiin waay waxaan rabaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee hoteelada ku caweeya ee walaalahay ah haddii aad bagaran weysaan inaad iska qaadaan dhagaxyadaas ama kacdoon aad sameyn karnaa labadiin intiinaba gabdhihii wiilal labadiinaba walba yareeya dhaqdhaqaaqada cid runtii idin sheegtaa leediina hoteelada aad aadaysaan iyo goobaha aad isugu imaanaysaan walba yareeya because waxaa tiin la heestayaal victim aad tihiin maxbuus baad tihiin maxbuusna meel kasta ma aadi karo isxoreeya shacabka Muqdisho dib ugu laabo waa nimankiiba hogaamiye kooxeed cid ka awood badnaa jirin iska saara waay أنا أقول للسحري إنه يقوستين إنه يجبين إنه يبهدل مين إنه ديك كده ما إنه وحلاق علي أنا قرن ماي سوني ما كي عبد الغديد إيو رجي موسى سعودي إيو محمد ديري إيو وحكا أود بدنا دوني نجرين أفريقيا أو إسكي علي سومتي دين أو أكيد إسكي علي إيو سوق إيو هوبيوت أكيد بسكولت كود برنا سومتي دين ما حد كفير سنة إنسان عيدا فرماجة وتي عيدا بوليس وبين الوشة والشباب كوعير ما كقات ور لعقتها كبقاتان سيدا يلا سيدا فين واقرا كرنا عيدا بوليسو لعق انت لسي بنا وانا قانا وفهمتين قدبكا كهلايو وان فيليا اناد فهمتين قدبكا كهلايو عيد idin dhexeyso amni sugayso ma jirto waxa ku dheer marka intaas waxaan rabaa waxa ku dheer intaas hadaan politiku wareegsado hadii sidaan u hadlaayo oo qof u hadlo hadii aan sida anigu dhiirinayo qof u dhiirado maanta waxa loo yaqaanaa oo reer Muqdisho oo dhiig leh oo aniga iyo dadka ila midka iga dhiig badan xataa oo sidan u hadlo waxa jirto qoriyo farmaajo uu soo adeegsado ku dhahayo adigu waxa taa qaran dumis oo raba inay afka ku qabsadaan waxay rabaan adigoo 3 milyan iyo bar ah iyagoo 96 qofood ah inay afka ku qabtaan oo hadli karin taasna waa nooc min al-sihr ah oo anaga nagu habsaday 3 sano ugu dambeysay waxay u yaqaanaan qofka Muqdisho yiraahdo waxa dalka wuxuu marayaa heer gabagaba ah oo dhamaad ah oo quus ah waxay ku leeyihiin waxa taa qaran dumis oo 96daas rag iyo dumar ahna waxa laga joogi waayay dawladihii Cabdullaahi Yuusuf Cabdi Sheekh Shariif aan iraado iyo Xasan Sheekh ay u yaqaanaan qaran dumis madaxweyne daldalaad u baahan ayagoo jooga Muqdisho is soo hadlayaan nin mareexana ayaan la kaftamay anigu tan kaftanka ah iyo dhabta aan kala saarantay dhabta waan ka hadlay hadaad kacdoon kaftan hay dambeeya hadaad kacdoon lagu dhiirada aad samay weysaan waxaan dusha anagana ka daawan doonaa dhibaatooyinkiina inagoo wax damqasho aanan lahayn sababtoo ah qofka hadduu ugu talagalo inuu asaga isdilo hadda shabaabku miyay u damqadaan ragga 7 ama 6 ee in isdilaan ay qaraxyo isku abuurto isku talaalaan isdilaan rabaan wax u damqanayo oo tacsiina waliga ma arko shabaab ayaga ama jannada galaya aaminsanada fikir ayaga aaminsan yihiin waay laakiin micnaa nin ugu talagal inuu dhinto waa muhiim geeridiis ka dib uun baa laga sheekeynaya ama gabar shidan ahayl ama xurlahayn ahayl wuxuu doonayay isaga wuxuu aaminsan yahay wuxuu ka sheekay adiga marka waxa noqonaysa kuwa shabaabka soo talaal amal ayaa geerida ada isbiimada ugu talana dhimatid ada ugu talagalna dhimatid hadda saan isku daawata adiga hadda waxaan rabaa shacabkaygiyo way daawanaysaan meel walba joogtaan kuwa aanan uusan gaarin muuqaalkaana way u gaari doonaa Amerika hadda gaarsiinaysaan waraali ma ka tiinaan dhagaxyada xamar iska qaadno farti ii taaga kulligii waxaan rabnaa kacdoon shacab Liibiya lagu riday Suuriya ku jajabay Iraq waa aragteen kacdoon shacab wadamada Maghribka waa aragteen kacdoon shacab cid ka awood badan ma jirtee maantana awadana fiidkana madaxdii aan la hadlay dawladii hore ku jiray iyo kuwa haddana waxay leeyihiin shacabka hadday kacaan anaga habeen iyo maalin waxaan taaganahay garabkooda waa siyaasiyiin waan u garaabayaa inta ayaga soo baxaan dhagax ma qaadi karaan laakiin kuwa idin difaaci lahaa idin hadli lahaa diyaar idin yihiin war gacanta ma taagteen oo dhagaxyada xaafadaha ma iska qaadi karnaa war wax lamida dhagaxyada xataa ma samayn karnaa war yaa gacanta taagaya oo diyaar u ah 96 wiil oo xamar gada kaga imaaday iyo baaq dheer kaga imaaday maya hadee soo qoraan 3,000 ay daawanaysa ayaa ka qiimo iyo qaaya badan war qof aan ku naxeenin oo geeridaada u naxeenin oo dadkaaga u naxeenin oo hantidaada kala jecleen ayaa xamar kula joogo oo kugu faraxsan oo ku dhahay qaran dumisata hadda ka hadishina waa ilaahay maadiisa iyagoo sidaas minority ah hadii afkaartooda horta waa raggeesiyaal ah laakiin
laakiin raggan ka dhashaysan garanayn dhibaatada jirta waa taas sharaf aad leedihiin inaad diyaar u tihiin inaad ka qayb qaadataan muuqaalkaana waxaan rajaynaa inuu noqdo mid ka duwan kuwii hore mid ka xamaasad badan kuwii hore mid ilaahay tawfiiqda waa igu kinkiisoo dhiibi karaaye ilaahay tawfiiqda dushu intuu iga soo saaray hortiina ka hela wallaahi bilaahi caawa inuu qeyr ilaahay iisoo diraa laga yaabaa war haddaana ani hadin cid dambo hadda hadalka sugaaya ma jirto oo dadkaas u naxaysa aniga waxaan ka codsanaa dhalinyarada wiilal iyo gabdhaha halkan iga daawanaya iyo kuwa i daawan doona berito waa maalin isniin ah wax aan ku qanco ama wiigan ma heli karnaa war dhagaxa iska qaada wallaahi askariga haddaad dhagaxa iska qaadaan xitaa askariga idin hadlaa walaa wuu xishoona sababtoo qof dhimanayo dhagaxa iska qaada qof la hadlaya ma jirto war miyaa dhiigga maqan yahay war miyaa damiirtu maqan tahay war miyaa nacasnimadan maxay tahay dhagaxa haddee maryan qaali cusmaanay dhagaxa iska qaadi karaan reer muqdisho waxaa ballan ah inaan intaan imaado xamar taallo idiin dhiso reer muqdisho weligee idinku faani jiray berita laga bilaabo dhagaxaasoo la iska qaado ma arki karnaa war geeri waxaa inuu sugays ma jirto waa dhimataaye walba adoo hora dhimo qarax ku dhimo dhagaxan iska qaad dhagaxan shabaab ma ahane adaa lagu goonaya shabaabku xabsiga dhexe hubbi geystaan eliitay galaan iyagu looma socdo qaraxa looma socdo iyage qaraxa adiga waaye miska qaadi kartaa qaraxa miyaad baqaysaa miyaad awoogaya aabbaha iyo awoogiis kale dhiiggiisa lahayn war hadalkan miyaa laga yaabay inuu kheyr idin yahay oo ilaahay idinkiisoo diray war dadka kale ma dhageystaan garowe dadka ma xirna war kismaaji dadka ma xirna war baydhabo dadka ma xirna adiga cashuurtaada lagugu cunaa adaa hantidaada la cunaa adaa maalkaaga la cunaa adaa lagugu kor nool yahay adaa lagugu kor qaylaa adaa shaaha iyo qaylaada adaa lagaa helaa adaa qaraxa kugu dhacaa dadkaas wallaahi bilaahi tallaahi macal farmaajo cid ka fulaysan wallaahi ma jirto waa ninkii caawa muuqaal uu soo geliyay inta la caayay ka saaro waay farmaajo intaasu maraya commenti ku cararan muuqaal kaga saare ka war haddaa kacdaan war miyaan dadka war aswaayad haddaa maqashay oday faarax iyo abkuu farxaan ma aha waa wiilan anaga camal ah war miya kacnaa ma kacnaa wax ma tusnaa dadkan balan waxaa ah haddaad kacdeenna ilaahay ha idin sharfo haddaad iska dhicisaana ilaahay qiimay qaayo adduun iyo aan dhammaan iyo darajo janna iyo mid adduun ha idin siiyo laakiin haddaad ka weysaan anna waxaa ballanaya dusha idinka daawano oo marka qarax idinku dhacona Manchester United aska soo furno iyo Arsenal iyo kooxaha ka sheekeyno laakiin haddaad idinka sidaan tihiin qof idin damqanaysa ma jirto beel caalama idin damqanin Soomaaliya idin damqanin farmaajo extension u sii raadsana qarax shaqadiisa ma aha yaa dhimana shaqadiisa ma aha yaa nool shaqadiisa ma extension u socdaa nin walba dantiisa u socdaa xildhibaan ha noqdo wasiir ha noqdo madaxweyne ha noqdo anuu farmaajo kale uma socdo everybody wuxuu u socdaa benefitkiisa creditkiisa gabadhii wiilka dhimanayo waa muqdishaawi haddaad dhig leedahay beri bay kugu sokeysaaye meedkii aad dusha ku wadatay jawaab ka bixi qaraxii maanta kugu dhacay adoo meed inta ku wato qarax hadduu kugu dhacana jawaab ka bixi beri bay mudan tahay jawaabtii haddaad beri aamustinne mucjiso continue ah oo weligeed sii soconaysa ku haysanaysa haddaad beri ka hadashidne at least nin dhiig loo wax fahmi karaa tahay cid farmaajo ka fulaysan Facebook video nin ka tuuro comment lagu caayay cid ka fulaysan ma jirtee war dadkan ka dhashow dhiig yeesha oo damiir yeesha oo wax itusa sharaf aad leedihiin geesinimo idinku aqaanaa ciyaal waa beri aawe oo ciyaal kaaraan aawe oo ciyaal daynil aawe ciyaal hodan aawe war 24 saac soo socoto waxana la tuso idinkoo ka jawaabaya dhiigga walaalihiin maanta baxay iyo hadalkeyga idinkoo ka jawaabaya kartidiina iyo inaad difaacan kartaan sharafkiina iyo dhiigga beri la daadin lahaa oo kiina ah intaasay ku foorartaa micnaha jawaabtay farcilinta aan rab inaad bixisaan intaasay ku foorartaa ma bixi weysay waxaad ka dhaxlaysaa maanta waa ka badbaadi Soomaa elite ama saaxiibkaa ka badbaadi beriyaad ku dhimanaya ama saaxiibkaa ku dhimanaa marka haddiiba geeri aanba la hureen geeri haddaan la hureen iyadoo sharaf la dhimo iyadoo karaamo la dhimo geeri ma la huraayo Soomaa fiiri
hotel kaliya ma aha hotel qofku iska ilaalin karaa number 4 miyaa la kala xigaa degmada Kaaraan miyaa la kala xigaa Bakaaran qarax meel buu ka dhacaa qof amaan isu way malaadi adigu isnaafin afkaaga qabso qofka ka hadin arimaana gelin waa kula boodale bajaajka aad saaran tahay baawurka dambe la qarxina waa kula boodale baska aad saaran tahay miina gadaal loo dhigay adigu lagu muudina lagu leeyahay dhimatay mac salaam waa kula haadale rasaas meel furaya wiifta guru kugu maad madaxay ka dhacay adigu nooc walbo sahlan u dhimanaysaa nooc aan sahlan u dhimo marka alla ku qaadiye nooc aan sahlan u dhimo nooc walba u bisashay inaa u dhimatay bajaajka saaranta ugu yar mid kale la xabadeeyaa ku dhimanay war nooc walba u dhimanay waxaan kaga sheekeemaa 10 maalin walba ku dhex jirtaan sharafaad leedihiin muuqaalka u sheegaray saaxiibta hadaa damiir laheed oo aad bari damba diyaar u ahayd inaad dhagaxas iska qaadid oo kacdo aan samaysin dhiiga laheed oo ilaahay ku karaameeyo haday kugu jirto yaa ii bilaabay ahayn aawan ku bilawnay hore u soco guuli gobonimo ha soo yeerto guuli gobonimo ha soo yeerto farxi cabdi beesani waayahay waan ka warsugaynaa anigu sheekh cadaawo anigu madaxweyne ma rabo ilaa mid aan legacy ka tagin wallahi inaan been ku sheegin madaxweyne Soomaaliyeed aniga ma rabo haddaan rabane waxaan rabaa Mandela inaan noqdo oo la dhaho war ninkaas dalka waxba ku soo kordhiyay ma rabo inaan sida farmaajo intaan umada been u sheego camera la soo qaado baq markay waxba aan qabo wayn extension qofi codaan rabaa may qofi qarax rabtaa qofi cod marabtid adiga qofi qarax rabtaa been ma aha qofi qarax waa rabtaa oo inta qarax dhacday inta qof dhimatay waa semba hadee dadka badan qaraxna ma yara qofi qarax rabtaa laakiin adaa ku baxay taas ogow rag horta jira ku baxay taas ogow waan idin salaamaya saaxiibayaal hadal dulucdiis waa taabto wixii mala yaani meeshada joogan waxay kaftana rabaa inaan ku soo afjaro in mareexano saaxiibana habeen la sheekeysana wuxuu ku leeyahay war farmaajo waxaan beesha caalamka tilaabo ka qaadis kula beesha caalamka kala jabanta beesha caalamka wuxuu ka dhigabo afar wiilo bakaarasha ku cabiis waa salaamantiin